waxaa leeba yiri gabadhu ma bageydinba oo u dhigantaa midgaati min bay ka soo doonayna haybaha fooq iska dhigaya marka wax lagu dhigay inantaadan doonaya waxa ku dhiganta miyaad garanay inta waa tumaal baan isma bageydaan maxaa ku anigoo Soomaali ah oo diinta Islaamka haysta oo ummadii Nabi Maxamed aayada aad igu diidaydin ma hidiinaan min bay ka soo doonayna haybaha fooq iska dhigaya marka wax lagu dhigay inantaadan doonaya waxa ku dhiganta miyaad garanay inta waa tumaal baan isma bageydaan maxaa ku keenay لا إله إلا محمد رسول الله لا يكبر حال باكو قبته ما تيجي كرت لما كنا سنود باي تيجي سنة ما على حال سيسان بناليها دم بحالي قبل ما يلنا كله هو تصيبه مكلتك كله واي ريرين والله يا برت فوقها ست عرمودا اللي دين بنس كل يابا أنكو عاية أمان حكي لك هلا لما كنا سنود بن عايشين ما نبغى حولنا صدنا عايضة وسمي صديق هذا أبكي وهي كله أنكو قضية دعاء ميس يفتكر وديني حردين بقبلني ما أساسا أنا محمد وأنت هلك وأنت شقيني ودعداسة وما أنت وليك الله هي إن المدح قيد قادم حالي يقول هذا ما أقوم به كوان حد جايبها مدحوينه وترتمية مع الهدي الشو الصحافة أنا ولي غنى وحلا يقول هذا وحويا وهيك صعب ما نقم أنا هذا نقوم كهرم لكن أنا فرح سنبان سهدا بس وحلا يقدري والسيستم كأحن قبيلة waxaan ku ilaha nidaamka lagu shaqeeyo aruurtayda aan ku ilaha ma aha nidaam sax ah buugan dheereed marti dastuurka arkaysa waxba ka jira bala ka saxi waa sideed qodob sideed qodob baan la inagu dhaqaa dad badan oo kala dulmanay way jiraan meel kasta oo Soomaaliga ka hadlanay sideedaas lagu dhaqaa waxaan noolaado qabiilku haba sheegaysanaan soo qaadin cadaalad laanka hayska jooga halkiisa haweenna daaba warkeeda haybtii tira leh ee halka degan u batalinaysa waxa cadaalada aad baad u mahadsantahay weydka lixdan iyo toddobadii marka ayaan macallin qoday lixdan iyo toddobadii iskuulkii horreeyaan galay kalaaskii aanu ku reeyay galay marka hablo waxay lahayn iskuulla gaala wuxuu iskuul habla ah oo elementary primary isku jira barnaamijin waxa jiray elementary intermediate iskuul berberu oo hablo u dhigtaan ayaan kalaaskii horreeyay soo galay xiisadii markaan galay ee sabuuradii aan sidaa u eegay ayaan arkay eray igu kalif gaaray mar inaan shaqadaba ka tago af Soomaali ma jirin fasalkuna wuxuu ahaa standard 2 iyo standard 3 laba baabal ma Ingiriisi dhiganayeen macallin Ingiriisi noona Ingiriisi ro broken ay ku qoreen we know you Mr Blacksmith waan ku garanayna Soomaaliya miyal baanha waan dhiyay laakiin waxaan ilaahay ugu mahad wardidii galaaska saddexaad wardidii galaaska qofka qoray garan maayo laakiin fara waaweyn bay ku qorantay وإذا تقول كده هيستاني سوق اللي جرى وحصدها كنت وانقريري على الترتيب ما كوعي قلي صار ضيباس اللي يسميه سكران برايا قام بالمركبة قالي وحال أديك سيدي educational psychology كان صوبرت طبعا waxaa leeba yiri gabadhu ma bageydinba oo u dhigantaa midgaatihiin gabadha ma geydin isoo ay toorey halkaas garafka iga saaray lama dagaalin waa ii xirneed aniga shib waa ka aamusay aadan caabi jaamac waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxa uu xiriir jacayl oo qoto dheer kadib guursaday gabar uu jeclaa si ay jacaylkooda u mideeyaan waxa ay ku heshiiyeen guur qarsoodi ah taas oo ay u arkayeen wadada kaliya ay ku rumayn karaan guushooda maadaama aadan caabi uu ka soo jeedo dadka la hayb sooco aadan caabi waxa uu hore goobjoog u ahaa dhalinyaro beeshiisa oo gabdho ay doonteen loo diiday hayb sooc awgeed caabi jaamac oo ah aabaha aadan ayaa markii uu ogaaday in wiilkiisu gabar uu qabo biloobay in uu la xidhiidho reerka gabadha balse nasiib darro reerka gabadha ayaa iska diiday in ay u soo gogol fariistaan caabi jaamac anoo kaligeeya oo qof ila soconaan waxaan u imid duqi awoowaha uu ahaa gabadha waa gartay aabaheed ma uu joogo waa gartay markaan u imid waxaan iri waa aan toosiyay waxaan iri war ii waran waxa dhacay ma maqashay waa maqlay yiri niyow galiimaan ka wadaa sabafalaan ka wadaa waxaan ka wadaa sidii Soomaalida qaynuunkeedu ahay inaad ila hadasho aan rabaa markaan iri wuxuu yiri
hadal hadda ma furna dad wada hadlay ama wax kala qaatay waa dad heshiisna maahin nabadna maahino qaab anigu haddeer aan wax kaaga qaada ma garanayo waa gartay taas wuxuu iigu daray gabadhu ma xirna gabadhu ma xirna wuu iigu daray waa gartay gabadhu ma xirna markuu yidhi waxaan tegey wiilkaan u imid waxaan wadaadkii gabadha xiray ii keen wadaadkii gabadha xiray aan ii keenay siyaadna waan u yeeray odagii waan u yeeray waxaan idhi bal sheekhow wixii aad xirta hadday baadil ahaayeen duurka ilaahayaan mar aha ii sheegan oo shareecada aysan waafaqsanayn waa gartay wadaadka gabadha xiray culummada Gurceel joogta wadaadka ugu intiraafka badan waxaan kala kulmay maalintii dambana waxaa leeba yidhi gabadhu maba geydiinba taa midgaatihiin gabadha ma geydiin waa gartay oo waxaan ku iri gaalkan aad u diraydiin oo faajirka oo ilaahay iyo rasuulkiisa aqoon iyo anigoo Soomaali ah oo diinta islaamka haysta oo ummadii nabi maxamed aayada aad igu diidaydiin ma hiidinaan ma yaaleeyo dhacdadu waa tii meel dhow dhacdo kala waa dhacdadii labaad horta dhacdadaanu sideedaba batatama waa dhacdadii labaad Caabi Jaamac oo ah konton jir ku dhashay Gurceel kuna ilmo dhalay ayaa sheegay in horay uu u maqli jiray heebsooca guurka ee dadka Soomaaliyeed ka dhex jira balse hadda uu la kulmay wixii muddo dheer uu maqli jiray anigu kelmadaha ay sheegayaan dadkaanu saddex nin aan u aqaan saddexna nin aan u aqaan ninka dariiqa oo taagan laamiga oo naagaha xooga oo dadka wixiisa cuna oo dadka dhibaateeya midkaan dhalaan u aqaanan ninka ilaahay inta hanti siiyey karfantii afarta waarheed aan looga gadayn ee culummadu iska wareysanahay aan u gadna ay leeyihiin midkaan dhalaan u aqaanan ninka ilaahay wajigiisa ku ceeboobana midkaan dhalaan u aqaanan ma garad marka walaale arrintan waxaan u bandhigayaa ummadda aqoonta leh ama culimo oo diinka ama dadka barofesorada ama dadka islaamnimada xabiibka u ah aan u bandhiga aadan Caabi Jaamac waxa uu wali ku kalsoon yahay in isaga iyo xaaskiisa uu ka dhaxeeyo jacayl balse la kala fogeeyay oo gabadhii loo diray dalka Kenya halkaasna ay wali kala soo xiriirto gabadhiina waa noola diiday Sooriyadina waa laga qaadan waayay xooga yaro ficilana waa lagu sameeyay abu wuxuu yiri waa ka soo tagnaa isaga u laabamayno wali hadii saas ay jirto marka ka soo tagnana waa ka soo aamusna marka adoogayo ka itimaha noo yimid wax aan muslimka aan sheegi karin uu sheegay marka waa ka aamusnay waana uu naga tagay aadan Caabi waxa uu ku xogsadaa gaari dameer uu ka biilo qoyska aabihiis sidoo kale waxa uu ka ururiyay lacagta Suuriyada ah ee laga soo diiday waxa uu caawin weydiistay shacabka Soomaaliyeed waxaan qabtaa dameerkan waa ku shaqaystaa magaalada Gurceel aan uga shaqaystaa waana ku xamaashaa alxamdulillah biilkayga waa ka soo dhacsadaa waxaan ku sheegaa lacagta haddeer oo Suuriyada aan cid aan isdhahay aad u goyda asagan ka shaqeeyay waana liigu diiday waa kaas qiil male qoorsiga iyo qabweynidu sheekooyinka noocan ahna dhowr mar ayaa laga soo dhaxtabiyay bulshada Soomaaliyeed Cabdinuur Ciise Qalamed raadiyaha TV-ga Shabeelle Gurceel Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka